عكسور وين دعوتنا كواد مقعد كبلاب. أوكي إن مقعي هو محمد علي شيخ عدة كترسن دلنيرة دقمة حمر وينه وحان إذن لا هي إن SDM إيو كهذا DSM إيو جروبك كافي ستوديو يس وحان إذن لا هي ما شاء الله وحاسم يسن دذال ليراته ديرجلين ليراته waxaan mar walba aan jecelnahay inaan idin garab taagnaano waa kuma santihiin ma sha Allah aad ma santahay marka hal su'aal ku weydiinayna oo diiniga ugu saabsan hadda ka jawaabtid awaal marin ayaa leedahay insha Allah ma sha Allah su'aasha diini la ma su'aal kale xataa ma loo yaa kayseeba du'aana ay way waa ogala okay nabiyina sallallahu alayhi wasallam imisa caruur oo dhalay 7 caruur ma sha Allah aad أجدنا. Oh, thank you, ما شاء الله. هذا ما تدي نقول كل اسمه. Okay, SDM إيو DSM إيو كافي ستوديو ميا. Okay, وما سنتين thank you very much. واني فرا بس ما يودلنا يا سويا. واني فرا هذا بيسرعنا. ذكب واكن بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وإله كرامي كان. بس واقعين بدن ياي ذهب واقعين بدن ياي لول واقعين بدن ياي دار الدنيا حتى واقعين بدن ياي بل في رديده وحكي الكتاب ما شاء الله الله اكبر بارك الله فيك ده الله يبارك نادي هذا وما سنتهين نادي هذا وما سنتهين واذن دعينا ديرجلنا نو سميسن انغا waxaan jeclahay mar walba ina garabkiina taagnaano ramadaan mubaarak ما شاء في الله امان الله اوكي adeer waa groupkii DSM official oo ku xiran Cafe Studio marka waxa laga rabaa in su'aal oo lagu weydiiyo diineed sidaas darteed inaad ka jawaabtid waxa leedahay hadiyo awaal marin ilaahay uu soo marka su'aalkaas diineed wuxuu ku saabsan yahay qofka ugu horeeyay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhahay laga rabaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سلامة أول رئيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول رئيسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام تو إلهي كسلام واي مركب معراج كلا ديرميي تولد سما الجارسيي أو رب العزة لكل مي أو أركينا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يسودقتي واي سلام وحقوه الرئي والتحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي إلهي أو نبينا جوابي السلام عليك أيها النبي إلهي أدعى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النبي أسينا كل جواب وعلى عباد الله الصالحين سؤالك اللي كان خلدين هذا نبي ملو بلاوين وحاكو بلاوي جبريل عليه السلام جبريل يسافر إليه ومسافرنا لا يسافر نيك كو دهي خف كو دهي جبريل عليه السلام ساس درتد قولا ورجينا إن شاء الله بسودها وذاك اوكي ودعوتي saddexaad aad ma siinaya marka waxa ku soo dhawaanay waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio oo su'aal diineed ku weydiinayso hadda ka jawaabtid awaal marin ayaa leedahay marka su'aalkaasina waa su'aal diini waayahay sooda fahamno su'aalkan wuxuu sheegaa dad oo been sheegeen jannadana galeen dad been sheegay oo jannadana galeen ha dad been sheegay oo jannada galay والله سوى شكر ماي ياك فايديسنا وإسلا سؤاشا هدان وجود قلوا مقعي ومحمد عبد العثمان فرد هذا ياد ما سنتين سؤاشا هدان وجود قلوا هذا صاحب كيجا أوريا لويدي سفيان وكفايديسنا ودد been sheegay oo jannada galay dad been sheegay oo jannada galay waxay noqonaysaa beenta horta markii islaamka la joogo dhowr siyaabay u banaan tahay al-islaahu bayna naas markaad ku jirto oo laba qof oo maaragtay dhibaato ka kala dhex taagneed oo dhibaato maaragtay isku haya ama isdili lahaa haddaad been u kala sheekayso oo midba been u sheekayso isku keento oo maaragtay oo aad maslaxa waxa صلح maslaxad u wadi doonay laakiin waxa way kan dad way
فهمنو waan gartay بين شيئين sidaas darteed ilaahayna uu dambi dhaafay jannadana isaas u galeen waan gartay waa group weeyaan groupkaas haddii aan mar kale ku noqdo waxa weeyaan dadkaasi markii waqtigii islaamka la joogay ee la dagaalamayay baa waxay arkeen gaaladii oo ku sii socota meesha ay ku sii socotana islaamkii baa joogay marka been bay sheegeen oo waxay yiraahdeen halka islaamku ma joogee jahadan kale u joogaa marka taana waa la oran karaa ما شاء الله waa soo dhaweysay laakiin jawaabtii rabnay soo aad baan maasantahay laakiin aad u maasantahay okay waad u maasantahay waa ka faa'iideysi su'aalkana waa ogtahay Soomaa dad oo group baan sheegay jannadana ilaahay uu bashaariyo oo galiyay hadda isku day waa nabi Yuusuf raalihiisa ma sha Allah aad ma santahay waa ka jawaab su'aalka magacaaga Mustafa Abdisalaam Cabdinuur ku dhac oo kuma dheer Muhammad ma sha Allah aad ma san yahay marka saas darteed hadii ayaa guddoonsiinayna marka diidan la guddoon اوكي waa daawadii lixaad oo ku soo dhawaa waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio oo maanta banaanbax u soo baxeen soonka dartiisa oo Ramadaanka su'aal diineed loo weydiinayo marka su'aal diineed in loo weydiiyo diyaar soo matid walaal diyaar ahay waa mahadsantiin soo dhawaa waa dhawaa magacayga Cabdirashiid Sandheere waxa ay qof wariyo journalist oo magaalada Muqdisho joogo marka ku faraxsanahay walaal wixii su'aal ay weydiinaysan diyaar ah ma sha Allah marka su'aalku wuxuu sheegayaa imiso nabi ayaa loo xusay Qur'aan Kariimka imise nabi su'aashaas jawaabteeda isku dayo ka soo diin tahay haddana waa isku dayayaa inta kale aqoonteeda gaarsiisan tahay waxa inta nabi lagu xusay Quraanka waxaan isleeyahay 33 ayo ku dhacday aad u maasantahay marka groupka DSM official iyo Cafe Studio ku soo daawadii sideedaad ma sha Allah marka waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio oo maanta banaanbax oo su'aalo la isweydiinayo oo diiniya maadaama oo Ramadaan yahay marka ku soo dhawaad magacaaga ku bilaab ugu horeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed Ramadaanul Kariim magacayga waa Maxamed Xaaji Suufi ma sha Allah marka hal su'aal diineed ayaa lagu weydiinayaa su'aalkaasina wuxuu yahay imiso nabi ayaa Qur'aanka lagu xusay انت نبي او قرانك لو خصيا لاتيشن ما شاء الله هذا ما سنيا سؤالك ما تجاوبي marka maxamed xasuufi awal marintan ayaa loo gudbinsanaya marka aad ma santahay groupka DSM iyo Cafe Studio maxad leedahay waa santiin aad ma santiin aad oo soo dhaweynaa kulli barnaamijkan ما شاء الله ما دام رمضان ياي الله كو بركايو dadkii quraanka ku anfaco Allah noo dhigo ma sha Allah ma santa soo dhaw okay waa daawadii sagaalaad waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio marka waxa ku soo dhaweynana maadaama Ramadaan yahay su'aal diineed in lagu weydiiyo oo naga jawaabsid marka ku soo dhawaa magacaaga noo magacayga waxa waaye Faisal Maxamed Yunis ma sha Allah codkaana waa salaamantihiin su'aasha insha Allah weydii kartaa waxa ma sha Allah aad ma santahay marka su'aalkaas wuxuu yahay salaada ugu horeysay oo nabi dugtay waa salaade salaad ugu horeysay oo nabi dugtay nabi rasuulullah sallallahu alayhi wasallam salaad ugu horeysay nabi dugtay ma rasuulka andira rasuul Muhammad andii kara salaade waa salaada ugu horeysay oo nabi oo bilaabay salaad ugu horeysay oo nabi bilaab ma
salaadii rasuul ilaahay soo dhiibo markaas salaadu bilaabo salaada saan dhigi karaa khalad ma maya su'aalka wili ma fahmin oo mareera su'aalka wuxuu yahay nabiga salaada ugu horeyso oo dugtay waa salaadee waay imisa salaada dugataay 5 waqti Soomaa waqtigee ku bilaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam nabi waqtigee ku bilaabay aadmo salaatu istisqaa dhigi karaa roob hada ma santa jawaabtii ku habooneen ma ahayn marka waa ma santa ay ku soo dhawaad هذا ما سنتهي مركوا نينك كفايديسي oo labaad ka faa'iideysanaa su'aalku weeyay marka waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio oo maadaama Ramadaan yahay su'aal diineed dadka bulshada oo soo dhaxgalnay si uu weydiino su'aal diineed marka diyaar Soomati si fiican marka magacaaga iyo bilaab soo dhawaad magacayga Zakariya Maxamed Khaliif aad ugu maasan ugu faraxsanahay barnaamijkan waxaan rajaynayaa insha Allah inuu guuleysan doono ma insha Allah ana sidoo kale marka waxaan ku weydiin lahay nabiga salaada Allahumma salli wa sallim wa barik alayh salaada ugu horeysay oo dugtay waa salaadee Nabi Muhammad salaada ugu horeysay oo dugtay anaka salaada dukanaan 5 salaadood salaada ugu horeeyay oo ku bilaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam okay nabiga salaada ugu horeysay oo dugtay hadaan isku dayo waxaan dhihi karaa salaat al-fajr هذا ما سنتهي مركز دوام اي هذا ما شاء الله ما شاء الله kusoo dhawaa waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio maadaama oo Ramadaan yahay waxa jeclaysanay in su'aal diineed oo diinta ku saabsan inuu ku weydiin marka kusoo dhawaa magacaaga waa ku dhawahay awalan magacayga waxa la Cabdisalaam Maxamed Xasan aadaan ugu faraxsanahay inaan idin kala qayb qaato barnaamijkan su'aal weydiinta ee ku saabsan diiniga ma sha Allah aad u mahadsantahay marka su'aalkaas wuxuu sheegaa qofka ugu horeeyay oo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhahay ayaa laga rabaa su'aashaas jawaabteeda daan isku dayo waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad u mahadsantahay su'aalkaasna su'aal jawaabtii waa beenad maahay اوكي وجروب كسو دوا وجروبكي DSM official iyo Cafe Studio maadaama bisha Ramadaanka oo bisha ugu qarbadneed ay tahay waxa jeclaysanay in su'aal diineed oo ku haboon diinta inuu ku weydiino marka diyaar Soomati diyaar marka magacaaga iyo kusoo dhawaabsan bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay Ramadaanta naga aqbalo su'aashaas hadii aan garto waan ka jawaabiyaa hadii kalena dhib ma laha ما شاء الله هذا ما سنتهي marka su'aalkaas wuxuu ku saabsan yahay imiso caruur ayuu nabiga dhalay imiso caruur ayuu nabiga dhalay nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu caruur dhalay 17 ما شاء الله هذا ما سنتهي وسؤالتي كما جوابين لكن واكو ما دعنينا ما دام ما شاء الله waa daawadii 12aad oo ku soo dhaweynayna waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio maadaama Ramadaan yahay waxa haboon in su'aal diineed iyo waxa jeclaysanay in su'aal diineed oo ku weydiino marka magacaaga iyo soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa waaye Axmed Suufi Cabdallah ma sha Allah codkaaga kor u qaadkay su'aal diineed la weydiina su'aalkaas diineedna wuxuu ku saabsan yahay juz ama imisa suurada ku jirta جزء عما انت صورة كجرت جزء عما تاسم شيء اوكي هذا ما
اوكي kusoo dhawaa waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio maadaama Ramadan yahay waxa jeclaysanay in oo su'aal diineed ku weydiino marka kusoo dhawaa magacayga waa Cabdi Aadan Barre Ramadan Kareem waa soo dhawaad ma sha Allah Ramadan Kareem marka su'aalku wuxuu ku saabsan yahay imiso suurad ayaa ku jirta juz amma imiso suurad ku jirta Saamaynta suurad ku jirta tiradooda ما شاء الله هذا ما سنتاي mana qiyaasi karo quraan نصيب ان شاء الله daawadii 13aad oo ku soo dhawaa waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio maadaama bisha Ramadan uu khayr badneed ahayd waxa jeclaysanay in su'aal diineed ku weydiino marka magacaaga ku soo dhawaa Xusaan Abdi Maxamed ma sha Allah marka su'aalkaas diineed in ka jawaab diyaar soo mati marka insha Allah guul ayaa ku rajeynaa marka su'aalkaas diineed wuxuu yahay imisa suurad juz amma ku jirta imisa suurad ayaa juz amma ku jira juz amma imisa suurad ku jirta diyaa isku day waxa ku jirta 30 suuradood insha Allah ku guuleyso ma santahay اوكي وماسنيا waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio maadaama Ramadan yahay bish Ramadan lagu jiro oo bish uu qeyraysan waxa jeclaysanay inuu ku weydiino su'aal diineed marka ku soo dhawaa magacaaga Abdullah Abdullahi Maxamed ma sha Allah su'aalkaasna wuxuu ku saabsan yahay dagaalkii oo malaa'igta soo qayb gashay dagaalkee way wuxuu ahaa dagaalkii Badr ma sha Allah aad u maasantahay sababtoo maadaama ka jawaabtay waxa ku doonsiinayna hadiyad ma sha Allah ما شاء الله soo dhawaa waa groupkii DSM official iyo Cafe Studio maadaama bisha uu khayr badneed lagu jiro waxa jeclaysanay inuu ku weydiisano su'aalo diineed waa maadsantahay waan dhawahay magacaaga maxamed cali maadi maxamed amiin ali qanaa ma sha Allah aad u maasantahay marka su'aalkaas wuxuu sheegayaa imise suurad ayaa juz amma ku jirta juz amma imise suurad ayaa ku jirto juz amma 110 suuradood juz amma kaligeeda juz amma kaligeed ma dhacay imise suuradooda ku jirto boqol ya 14 waa Quraanka all way waxa ku jirto okay 8 suuradood ma santahay maadaama guul ayaa ku rajeynaa insha Allah aad u mahadsantiin daawadayaal meeshan ayuu noo dhamaadeen su'aalaheena waa soo qayb galay groupkii DSM official dhamaantood aad u mahadsantiin iyo Cafe Studio iyo Ahmed Photograph dhamaan waxa uu mahad celinaynaa kulli inta ka soo qayb gashay iyo inta kale marka waxaan leenahay Ramadaanka haniga wacnaado Ramadan Kareem kulli caam wa antum bi khair aad u mahadsantiin